Soomaalidu walaalayaal waa cunsur facaala waxaan akhriyo buuga wuxuu sheegayaa 30 sano kadib inaad idinku garatiin waa muhiim 30 sano kadib bariga Afrika waxa xukumi doonta Soomaali balad waa daraasad cilmiye weeyaan 30 sano maanta marka laga joogo kadib geeska Afrika bariga Afrika waxa ka talin doonta Soomaali si uga talin doonta Soomaalidu balad iyo kuma kala saarayaan Soomaali koonfureed iyo Soomaali Somaliland iyo Soomaali Djibouti iyo Soomaali maartay shanaad iyo Soomaali Kenya kuma yaqaanaan iyo waxay ku yaqaanaan tahay qof Soomaali ah qofka Soomaaligi isaga xukumi doona bariga Afrika buugaas wuxuu leeyahay qofka Soomaaliga wuxuu leeyahay saddex shay buu leeyahay buuri ninka Soomaaliga oo Afrikada kale ay lahayn kow wuxuu leeyahay buuri wax loo yaqaano dynamic waa qof aan fadhiisan ninkaas wuxuu diraasad ku sameeyay Soomaalidu waxay ka yimaadeen wadanada ugu kulul adduunka waxay maanta joogaan buuri Mareykanka gobolka dhada Minnesota oo dhulka ugu qabow waxaan isweydiiyay buuri si u yimaadeen meesha ugu kulul ilaa iyo meesha ugu qabow su'aasha labaad waxaan isweydiiyay buuri si uga sameeyay nolol horumar leh marka waa dinamikiya waa qof dinamikiya arinta labaad qofka Soomaaligu leeyahay buuri waa muqtaxim qof nolosha ka cabsada ma waa qof jeeda adarkaysa waxa lagu leeyahay warbadaha waa lagu dhimanaya ma fadhiisan dhalinyaradi way soo socdaan sheekada ma dhageystaan waa xaraan iyo wala dhimanaya iyo iska imanayaan badda soo socdaan iyo ku arkay waa wixii Mareykanka ay ku qabsadeen ragii maartay ka yimiday Ireland ka yimaadeen badda waa lagu dhimanay waa la soo marayeen Atlantic intii soo gaadho ma noolaatay intii kale waa iska socotay marka qofka Soomaaligi hatta nin gabadh safarada Djibouti ka shaqeynayay Mareykanka la sheegay waxay ka tiri ladaykum ruux anglo saxonia Soomaalida waxa leedihiin ruux naf waxa leedihiin anglo saxona yani Irlandiyiin baatiin dad waxa tii cabsan saasaytay marka qofka Soomaaliga taas sheegay arinta saddexaad ee qofka Soomaaliga uu leeyahay ee muhiimka ah wax weeyaan qofka Soomaaligu meeshu tago uu xajisanaya inta ugu badan identitygiisa hawiyadiisa gabadhii xijaabka xajisanayaan koonfurta Suudaan bay tageen dukaanay ka fureen Suudaan ba ku nooleed muslina koonfurta Suudaan waligu tarawih mi tukan ilaa ay maadeen Soomaalida ka furteen maartay adeegayaal iyo ay ka furteen meelo suuqaqa iyo xawaaladii markay furteen waxay dhahaan Ramadaan baa yimid salaad soo tukanaa miskiid lagu tukado meel lagu tukan tarawih laba xaafidiin naga soo doona xamarka doona laba xaafida lacagta laga bixi la keenay marka ay ku tukadeen banaanadii marka Suudaantii gaalada hay'ad Afrikaanka socoto banaanadii salaad lagu tukanayo oo dadkii kadibna maxay noqotay daahirad dadkii Suudaantii baa fatahtum lana ya akhwan nafrta albaaki sidii halkan bal lagu xijaab lagu qaadan jirin Soomaalida horteed lama qaadan jirin Soomaaliga waa qofka waa muqtaxim nolosha kama cabsado marka arintaasina waa muhiim taasina way garanayaan arin saddexaad ku saleeyeen diraasadoodu waxa weeyaan qofka Soomaaliga wuxuu jecel yahay in uu noloshiisana sameeyo nolosha dadka uu mas'uulka ka yahay inuu sameeyo koonfurta Afrika fadhiya nolol buu ka sameysanayaa uu soo waariday hadito dadka kale ka dambeeyay war hebelow soo dhaqaaq adna soo dhaqaaq noosana noloshiisa marka uu balaarinaya ninka Soomaaliga marka maxay u bixiyeen Soomaalidu qaswi waxay qaadaan dagaal socod iyo qaadaan okay marka dadka saa u fikiraya ee caynkaasa marka aan doonay in noloshooda maxaa la sameeyay arin buu Ilaahay siiyay hadana dhulkii hoostiisana maxaa yaala barwaaqo aan garinin nin la yiraahdo Anwar Ishqi waa caalim istiraatiiji oo dawladda Sacuudiga u shaqeeyo mukhabarada wuxuu yiri gaaska hoos yaala ugaadiniya meeshu soo yiri Soomaali galbeed ugaadiniya gaaska hoos yaala buri waa bad waxa imika la hubaa badkaas halka yaala oo ka bilaamaya dhulka diradaba gudusheeda ka bilaamaya oo ku dhamaanaya halkii wuxuu ku dhamaanaya xeebaha badweynta India dhinaca kale tan uu soo baxaya ilaa ay wuxuu imanaya Zeylac iyo lagu hayo imanaya waxa inta leeg ee meesha fadhiya isha lagu hayo waxa loo dhiganaya inuu badiil ka noqdo batroolka carabta markuu dhamaado markaas dagaalka istiraatiijiga lagu hayo waxa muhiim ah in dadka Soomaalidu ay fahmaan waxa jira arin saddexaad oo jecelahay inaan aqoonyahanka Soomaalida halkan iyo culimada kala hadlo aqoonyahanka Soomaalida iyo culimada waxa weeyaan waxa u yaala inay dadka Soomaalida madaxooga furaan madaxweynuhu uu shaaxiday madaxweynuhu waa in la furo waa laba shay laga furo waa in qabiilka laga furo labo
وإن لغفر إن نقروينا عدوجينا عدو استراتيجي لنا أنكو عدو سكمنين لكن عدو استراتيجي وبرق أفريقيا نلفرديان لنا هاي هي عدو استراتيجي ونغفك لكن إن حكم يميل فك إن سكن دريا هي أجل عدو قال إن حقوق ولا صعنه والله قبل مارمان وأنا مهم يا واحد ذاك تسكره وأقويها كي علماء وإن يتصان دقال بين أقول حصاده يعني إن الله قريب معها وحاسوكين دول دريا دول ديو ينامك معها وإمارات يتركي وحاسوكين دول هايستا marka annakuna aan kala metelino anigu qaraxa maanta dhacay ma oranayo waa qarax shabaab uu ku xoog weyn shabaab waa qarax istaraatiijiya waa qarax dawladda ka dambeeyaan waa qarax aragtiyaal ka dambeeyaan qarax saas kama dhicino qaraxan wuxuu ku xiran yahay wax badan wuxuu ku xiran yahay ninkii la dhiibay maxaa dhada qalbi dhagax wuxuu ku xiran yahay dhagax qalbi shirkii imika ka dhacay gobolada shirkii imika la sameeyay wuxuu ku xiran yahay hadalkii dawladda imaaraadka soo baxay wuxuu ku xiran yahay qaacidada askariga furayso maxaa dhada turkidu ay tiri waxaan sameeynaa 10,000 oo ciidanka Soomaaliya oo milo yacdo ilaa kismaayo oo qabiil lahayn oo askariya oo aqoon iimaan leh fikrad leh oo dhulka difaaca waxaas wuxuu keenayaa isweydiino waaweyn adduunka markaasi waxa in la garto oo madaxa loo furweeyo arinta ugu dambaysa qolada aan xagan kala hadlaa wax weeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxa muhiim ku ah ikhwaani fillah adduunka maanta waxa midoobaya dadku waxay ku midoobayaan qowm waxda marka laga diin عقلي هنيلانو مالها مركان فدينو انا هو جيبوتي بان هاي انا هو سوماليلاند بان هاي انا هو بنتلاند بان هاي انا عرتلاند بان هاي wax macna ay leedahay ma jirto kurdi qoom bay noqonayaan waxa weeyaan ummad walba waa qoom ummad bay noqonaysaa marka kor u socon weey hoos ba u soconaysaa haddaan anigu maanta aan sheegto inaan meel yar kamid ahay waan sii socon marka dambana aniga walaalkay baa laba bax kala noqonayna waa basal ma dhamaanayso لكن هذا كور أصعده وحنا ما نقدر الصومال نمو قفك الصومال نمو ذا كحناقة والدلي وين قفك قاسي وحضوني هذا أنا وحنا كل هذا ولا له رجل جبوتية عن فرتها وإنكم عن فروي بدعشين أنا الصومالوي ما جعلها إيش المشكلة؟ ما في مشكلة هذا كل أسكاه هو عن فروي ولا كبعتها مسلم بعتها كان هو الصومالوي ما أنت أن كتنازل إن الصومالي نقولنا يندمني أيام تمام دمني واسقوا لا فكرنا سوى لو معمولي ولا قلدمي حميد أدرا قلدمي محل قلدمي كان قلدمي اسمع عمر قال قلدمي وحوا شيخ سكروا لكن وحن لقى شيء سكري وحويان ما صومالي ما يا قال لنا شكو ما حدا تاقل انه اسلام ما قبل قال لنا شكو لبدا الشيء هنا والدفاعنا وحويان حدوا حتى دان اسكو يمنو ومن من نقولنا عرضوا ماتا عرب با دونس ان هل دولد نقطه ولا بربريه لكن هل دولد نقطه waxa jira wax qowmiya carabiya waa la doondoonay rag ba ka hadla waxa jira qowmiya kurdiya qowmiya turkiya qowmiya antakiya dadku faransiisku waa qowm waa la doondoonaya adiga maxaa ka baabiinaya marka dhalinyaradu inay dhaafaan maaragtay baa mushtarku waxay sameysteen tukaan quraato dahabshiil ba ka dhisan Soomaaliya dhan dahabshiil Soomaaliland buu dahabshiil ma ha dahabshiil Soomaaliland meel kasta ka jira oo maaragtay odaygii la hajray muxuu ahaa in bank salaam la jumid kasoo muxuu odaygii maaragtay يا هرمود ما كسك جرتها في كل مكان واحد هذا حدود ودافع واحد هذا عابرة الحدود حدودي وإيش كدافته تجارتي ودافع علماء وين حدود الأفان علماء إن الحدود يشان معها جغرافيا مركز سادر هذا أساس ما نجعل لها إن شاء الله تعالى